الرحمن الرحيم شبكة ورarka ee Ramas News waxa marti oo ah galabta wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yunis oo socdaal hawleed ku jooga magaalada Oslo ee dalka Norway Maxamed Biixi Yunis anigoo ah tifaftirihii guud ee shabakada wararka ee Ramas News waxaan kula yeeshay magaalada Oslo waraysi kooban oo ku saabsan socdaalkiisa marka wasiir marka ugu horeeya waxaan kugu soo dhaweynayaa shabakada wararka ee Ramas News وزير واحد وربحين كوبان naga siisaa bal horta socdaalkaagan iyo wixii faa'iido uga soo kordhay Somaliland بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدبار وما دقي حد رزاق opportunity على تسير دوين تربية رئيسه هذه أنا ما حصلت هاي سيدا وصعت أمان حلي دي كل شيء قبل كي جاليد لها اللي سفر كي يقول كسب بالله من وضع كتريانية جامعة الله يعطيه كيس يونيفرسيتي قول إنه سو مرتقى إن خطط الكونفرنس كبير وانكهضوا نبضة ينبض السومالان قاعدين يهرمك كي قاعد حق النبضة أيضا إنه حبك عاون هي أي قدوري سيدو لوجا فايدة سكروا ما راح كلا عالم كجوانية سيدا أوصل استمام الكود يهرمك كذا درك السومالان كبعدنا وحلقوا من وزير كبير كاليانيكا وسوع سوي وأنا قوض هذا اللي علاقات السوماليان iyo Talyaaniga sidii loo qabcin lahaa ee labada wadan wada qabsan lahaayeen ama xag dhaqaalaha noqoto ama xag horumareed ha noqoto ama ha noqoto xagga wada hadalada ama ha noqoto xagga tababarka marka fadhi dheer baan wada yeelanay aad iyo aad ugu faraxsan uma mahadnaqiya dawladda Talyaaniga sida weynay loo soo dhaweysay hadaan ay dawladda Soomaaliland halkaan markaan ka tagay waxaan tagay dalka Ingiriiska waxaan la kulmay safiiradda cusub ee maanta loo soo bedeli doono inay u noqoto safiir Somaliland iyo Soomaaliya oo imika aan weli tagin laakiin aan jeclaysanay inaan hordhac wada hadal sii yeelano oo uga warramo qadiyadda Somaliland oo markeeda wada hadalada halkay marayaan cilaaqaadka Ingiriiska iyo Somaliland dabeetana Norway baa soo xasuustay oo la kulmay sidaad ula socoto wasiirka State Minister for Foreign Affairs ee Norway iyo teamkiisa isna wada hadaladeedu waxay ahaayeen cilaaqaadka si loo kobcin lahaa sidii ay waxtar loo tari lahaayeen arrimaha wada hadalka aad u xiiseeyeen kala wada hadalay waxaanu ka wada hadalnay nabadda taalo wadanka iyo inaan cilaaqaad culus la yeelano ka bacdina inta waxa la kulmay jaaliyadii Norway ee Somaliland ayna warkiisii dalka Norway guud ahaan dalkii Soomaaliya la isku oran jiray dhaqaale badan buu ku bixiyaa oo waxaanu ka geystaa qayb muhiim ah buu ka geystaa dib u dhiskii iyo habkii dawladnimo Somaliland sanduuqeeda sidii aad xal sheegtay wadamada dhaqaalaha ku dara ee qaybta ka aweeya waxa inaga gaaraho inooga soo kordhay socdaalkaagan oo aad oran karaysaa dalkii waan kula noqonayaa wayno bishaaro waxaan oran karaa runtii horta qadiyadda Somaliland aan si fiican ugu sharaxay waxaan u sharaxnay halkii wax maraya waxaan u sheegnay inaanu waxtar ballaaran uga baahan waxay ballan noo qaadeen inay waxtar badan waddanka Somaliland gelin doonaan inay arrimaha wada hadalada ka qayb jecel yihiin inay isweegaan waxay noogu ballan qaadeen inay kobciyaan cilaaqaadka ka dhexeeya Somaliland iyo Norway waxay ballan nooga sameeyeen badan oo maalgashiyaasha oo jecel inay maalgashadaan waddankeena iyo institutions fara badan oo aad iyo aad isugu xil qaabaya sida waddankeena uga qaban lahaayeen marka waxaan oran karaa waa guul loo soo kordhay oo ah inay albaab cusub u furo wasiirku ama furno lagu soo dhaweeyay tiimamkiisiina uu kula taliyay inay gacan naga siiyaan ama xagga muhaawarada ama ha noqoto projectada Yemen ama horumarka ama waxyaabaha badan ee xamuul qabanay qaarnimada marka waxaad leedahay maqaam ka sarreeya maqaamadii hore ee Somaliland mas'uuliyiinta timaada lagu qaabili jiray ayaan lagu qaabila runtii sidii hore loogu qaabilay anigu lama socono wada soo ku cusubahay jagadan 2 sano joogay intaan joogana cidimay iman iyo muddo dheer baan filayaa ama intii dawladda kulmiye jirtay marka waxaan si oran karaa saddexda wadan ee khaasatan Talyaaniga iyo Norway ku si aad iyo aad u qadarin weyn ay loo soo dhaweeyeen su'aasheeda ku xigta waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda muddo kooban baa joogtay runtii horukac badan uu ka jiraa oo haday noqoto xiriirka caalamiga ah haday noqoto maalgashiga iyo ganacsiga si yeeshee dhinacyo kale oo la tabayaa jira oo
xaggii diblomaasiyaddii wadamo badan oo Afrika aynu ku lahayn oo ahaa front line-ka Somaliland ugu jiro South Africa ka mid tahay oo Ethiopia ay ka mid tahay oo aynu dariiqa kaliya dunida aynu sii marnaahay waxaad moodaa xidhiidhadoodii inuu aad u hooseeyo halka haddaan hoos ugu soo daadego dawladda shaarkana in Ethiopia xidhiidh xitaa dambiilayaasha ama wixii ina kala gala in isugu celino ayanu lahayn imika xidhiidhka halkii ugu hooseeyay maraya ka wasiir ahaan maxaa dadka uga bayaamin karaysa halka ma dawladda iyo ku qanac la'aanteeda ma inagoo gaabisaba ma isbedel kala yimi wallahi waxaan qabaa warka adayso mid ka gadisan aniga igu muuqataa ruuxaantii maanta maalin ay ka xoog weyn tahay cilaaqaadka waddanka Soomaaliland iyo Ethiopia ma jiro halkii ugu sareeyay baan oran karaa wuu marayaa cilaaqaad culus baan la leenahay si weyn baan loo qadariyaa xafiiskooda ka furan ayaga ka furan waxyaabaha ugu waaweyn ee ka dhacay imika waxaan ku oran karaa waxaanu sameynay markii ugu horeysay dawladda Ethiopia iyo Somaliland waxaanu la saxanay MOU ka dhaxaysa sida labada wadan isugu soo dhawaan lahaayeen waxa MOU-daasi ku jiray sidii loo maalgelin lahaa jidka Togojaale ilaa Berbera waxa ku jiray leydka Togojaale Ethiopia jaban sidii loo keeni lahaa waxa ku jira tareen inay keenaan waxa kaloo ku jira sidii maalgashi loo gelin lahaa ayagu ay hawshooda wadaan oo ay nala wadaan sidii loo maalgelin lahaa dekada marka run ahaantii waxaan qabaa maanta Ethiopia inay aad iyo aad u aragto baahi culus inay u qabto Somalilandna ay tahay wadan ay saar yihiin nabadda Ethiopia waxay ku saleedahay nabadda aan siino iyo mucaawanada aan ka bixino ayaga Ingiriiska aad baan ula shaqeynaa marka run ahaantii warka aad haysay meel hoose maraysa wax ka jira ma jiraan waxaan sal uga dhigayaa xagga amniga wali dalka Ethiopia Somaliland wixii qalaan qala ama wixii hadii cidi bari bay jabhad oo inala soo dhaxmartay dagaalka ka gashay Somaliland wanaga ogeyn barbarka kale ee gobolka Awdal waxa jooga nin Malaysia haysto oo ka soo horjeeda Somaliland ba jooga waa Suldaan Wabar dalka Ethiopia sulka jooga Hargeysa muddo la weydiiyay maxaa ka hortaagan inay joojiyaan mucaaradka waliba gaadiidkii dalka gudihiisa ah ee dadka lagu shaqeynay wasaaradda boobaya ee xagga kala jooga hadii xiriirkeenu wanaagsan yahay horteeg Suldaan Wabar sideen u buubuulinaysaa ama dadkiina dibadda jooga iyo arrinka Suudi harkiis ma laha dawladda Ethiopia waan kala hadlay safiirka waan kala hadlay wasiirka khaarijiga waan kala hadlay waanin keligii cararaya oo maalin xagga loo dusay maalin xagga loo dusaya dawladda Ethiopia nabadgelyada Somaliland waa wax xaggooda muqaddaska ah kuma ciyaari karaan anana kuma ciyaari karo wadkayga jaarka inay jabhadana xagga ka furmo xaggan ay ka furmaan walna waxa naga qaadan inay qabtaan waa la raadinayaa aad bay uga shaqeeyaan waa nin keligii carruur jabhad weeriyo wuxuu hayaa ma jirto waa iska burcad meel cararaya waxaana nu aaminsanahay inay si degdeg ah u keeni doonaan wallan bay naga qaadeen waa nin Mareykan sidana waa nin shita baasaboor ajnabiya waa nin ay doonayaan Ethiopia-na marka waxaan u aragnaa inay Ethiopia aad uga xun tahay xil weyn iska saartay inay hawsha ka gacan gasho laakiin wax weyn oo maanta ummadda u geysanayaana ma jirto waxaan ballan ku qaaday inaan gooray noqotaba in ka laga soo gacan geliyo anana aad baan nabadooda u ilaalinaa su'aashayda xigta waxa weeye dekada Berbera xalay si wanaagsan baad bulshadii jaalid reer Somaliland aad uga warrantay ujeedada iyo siyaasadda ka dambaysa dawladdu maadaama dekadihii kale ee dalka Soomaaliya iyo ku jaarka wadamada jaarkuba ay kor bacayaan in la koriyo hase yeeshee ummaddu waxyaabaha ugu badan ee warwarka ay ka qabtaa waxa weeyaan xilligan dawladda ay dabayaqa tahay dawladda maxay 5 sano bilowgeedii intii hore ay bilowga ahayd waxay ka qabanayso maxay uga qaban weeday imika horta Cabdirasaaq oo aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su'aasha ay weydiiso waxaan qabaa dadka intooda badan ayagoo warb fara badan hayn ayay aaminsan yihiin waxba la iibinay dekadaas waxa weeye qaniimada ugu weyn ee Ilaahaynas dad badan waxay yiraahdaan Berberi wax go'o lagu qaada ka weyn dekad ballaaran weeye waa mustaqbalkeena waa mustaqbalkii ubadkeena waa waxa kaliya ugu weyn ee maanta haysano hase yeeshee haddii ku dul fadhino oo sidaas u lahaato jaararkii caalamkii dekadihii agteena dhaw waa ina dhaafay
inaynu la maalgeliya waa muhiim inay dekad ballaaran noqotaa waa muhiim inaynu ummaddeennii wax u qabanno oo wax muuqdo oo maanta Ethiopia xoolaheedu dhan bayna soo mari lahaayeen aynu Djibouti iyo Mombasa iyo Boosaaso meel kasta la compete karayna waa muhiim annaka waxaa naga go'an ama dawladda inta wax dhaha noqoto ama tadabaxa noqoto in ay mas'uuliyad ka saaran tahay dawlad kasta oo reer Soomaaliland oo jirta in wixii horumar ay dadkeeda ku kobcin karto ee shaqo loogu abuuri karo inay ku dadaasho yes khibrad badan uma lihin consultants badan baan isticmaalaynaa dad baa naga eegaya arrimaha ku dhawaaqday ee ka mid ah shaqaalaha shaqadiisa noloshooda horumarka magaalada horumarka waddanka noocay noqonayso inta la gelinayo dad fara badan baan inta la tashanayna dad fara badan aad iyo aad bay u xiiseynayaan inay dekadii maal gashadaan hase yeeshee aad iyo aad baan u qabnaa inaanu ka fiirsano oo aananu ku degdegin oo wixii aanu keenno ee hagaagsan dadka aanu soo bandhigno oo wax cad oo la arki karo transparent ay noqoto waddankana hore u marinaya shaqaalaheeda hore u marinaya dalkeedana hore u marinaya marka ma aaminsanin waxaana dadka aad iyo aad ugu ka shaqeynaya hawshan ee ka midka ah wasaaradda aad iyo aad xilka isaga saartay ayay mashruuca iyo mashaariicda kale ee waddanku u baahan yahayba waa waajibna saaran haddaynan waddankeeni la kobcin oo dhaqaalihiisi kicin oo shaqo abuur dadkii loo sameyn oo kuwa shaqeeya maanta noloshoodii iyo mustaqbalkoodii iyo reerahoodii kor loo qaadin dee meel gaadhi mayno marka waxaan aaminsannahay inaanu ka fiirsano inaanu ka taxadirro inaanu sida ugu wanaagsan ee waddanku ugu noqon karto dekadu aan hawsha uga qayb galno beesha caalamku toddobaadadii ugu dambeeyay culays bay soo saartay xagga xukuumadda iyo xisbiyadaba arrimaha doorashooyinka daraaddood safaaradda ingiriiska iyo wadamada deeq inaga taageera xagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka socodsiintoodu culays bay ku soo saareen in muddo kordhinta soo socotay ee dawladdu ay sanad ku koobnaato oo intaa commissionku sheegay ay ku koobnaadaan safaaradda Mareykankuna wargeyska geeska Afrika la yiraahdaa ee ka soo baxay Hargeysa waraaq uu shalay qoray safaaradda Mareykanku waxay u soo dirtay madaxweynaha waraaq ay wasiirro kamida wasiiradiisa ay farta ku fiiqayso oo ay leedahay ha ka daayaan guurtida gujaynta marka ma baqdin baa ka jirta xagga xukuumaddiina in doorashada gashan iyo xisbi ahaanba ما قبل روتين عن بعضين قبله وحضر سعة عبد الرزاق إن أرهن كدور شوي أي تايم مسؤولية ومرضو أحد صارتي National Election Commission وإنه مقعوني أو شوي قليل تبقى كودي بيقاتين باش عالم كنا حوق يدقالة أرهن يطلبه وحيسي National Election Commission إنه هو شو ذا معموله دولة الفراغ وقاطي ما نربط إلى نحكي شو National Election Commission هوش الله حل صاري معمول كدور شوي National Election Commission كيمي كوكو كيامي إن ويلا هذا واحد دعي ساعة مكانه ما كستوعب كأجني وقت جاء جون إن شاء الله لا هي لكاسير 2016 تاس أي كل واقعين دولة الصومالي لاند يعني ما كم بدها waxaan naga go'an inaanu ixtiraamno go'aanka ka yimid hase yeeshee taas mid annaka noo taalaba waa mas'uuliyaddu ay saaranta National Election Commission-ka iyo guurtida juqajuqa inaanu ku haynaano kuma jirto wixii maanta ay commission-ku soo gooyeen ee ay gooyeen baanu u sheegnay caalamka warqadda Mareykanka ku leeyahay waa lagu jawaabay jawaabteeda aragtay ma hubo hase yeeshee waxaanu u sheegnay in aanu annaku shaqo aanan ku lahayn hawshaasina hawl u taala National Commission inay tahay waana la socotaa madaxweynaha maanta jira doorashadii hore 8 vote buu ku waayay si sharaf looga dhaqaaqay uu yiri waa la iga helay gacanta u dhiibay marka dad ka baqanaya manihin doorasho la galo waxaanu aaminsannahay haddaan maanta doorasho galay inaan helayno marka dhib nagu haysaa ma jirto waana ixtiraameynaa National Election Commission-ka iyo guurtida hawsha loo xil saaray mid annaka noo taalana runtii ma aha waxaan ku dadaalnaa inaan waxa ka soo baxay National Commission iyo guurtida annagu fulino wixii fariina ee aad u marinayso waraysigan aad u marinayso ummadda adigan ku siinaya maadaama aad mas'uul tahay qaran booqasho ku maray dalka Norway
هذه أتباع الرزاق ومحسن تحي تبيك على سيسي هي opportunity على سيسي إلى المسج تذكر سومالي لاند إذا دقيسان إياه عمر إياه هذه المسج كوجه إياه أما فريت وجوه تذكر سومالي لاند والله وحويه قلت سومالي لاند إلى هاي هاللقب تي نبض بين كاسين نبض هو وحويه العالم ذكي وحشرك هذا سوق يسوي تجارة ونبض يحصلون لذا يدقنا شهوة كاسولية إنك كل حنول في جندن أو ذبذبني فكرت وحن كل ترى لها قفت أوريس سومالي لاند إلى النبض اللي نشوف هلا بعد كنت لنا وحويه من نبض إنه وح مهمة قطع معارض محافظ ويا رنكرة لكن ما كان نقطة أهمها قرن كين من نبض سومالي النبض إلى إنه مالك استوى سوتشين فحكون فرق لها ذاتك الدبد كله السومالي لاند إلى يقعدان إلى مسؤولة كسارة تحي حلو إنك سارين حي دلكودي دتكودي وديك استعمل وياها أمباسدور ومدة في السومالي لاند قن مركا إنه إنك استعمل قضية إنها كيبي كيبي وعنتنا لقب قضية عن وابنه وأن راشق قيان وأن تاجران ودتكودي دلكودي ومدة وقفتان أنا أفر لها وحن أمسنا هاي الدتك في السومالي لاند عالم تسان نبض يحصلون قيمة هاي اللي هاي وحن أمسنا إنه سبعة كان يوم دون وكان عشرة كسر وضنه كان مرة بعد عبد الرزاق قال بانك وما حد مقيان كان كانت ما في شيء لا هنا وحن كبر يا المرض المقولنا ما المحسن ورئيسي أنك قاضي وزير كرمه دبده السومالي لاند مدن محمد بيحي يونس أنا أتفبتها جود شبكة ورك رماس نيوز عبد الرزاق اسمه أنت سنكسوق بجبيني وزير آديات بعض ما حد صنطها بعض ما صنطها